xogta rasmiga ah ee dagaalka qasaaraha geystay ee ka dhacay magaalada Gurceel ayaa ah kuwa aad loogu jahwareeriyay bulshada Soomaaliyeed balse xaqiiqada dhabta ah ayaa dagaalkaasi qasaaraha badan geystay in uu ahaa mid ay gacmaha kula jireen wadamo shisheeye oo marino hoose lacaga iyo hub u soo marsiinayay hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca kuna dhiirigeliyay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada muhiimka ah ee Galmudug oo iyagu iminka laga leeyahay dana dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo isbarkan sida aan ku ogaanay baaritaan iyo xoga aan ka helnay ila lagu kalsoon yahay dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dhaqaale ku bixisay dagaalka iminka ku ekaaday Gurceel balse qorshuhu uu ahaa in uu ku fido magaalooyinka waaweyn ee Galmudug wararka qaar ayaa sheegaya in dhaqaalaha oo ay wehlisay saanad military oo bishii July ee sanadkan la soo marsiiyay madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo isna qayb ka mid ah lacagaha oo lagu tilmaamay horudhac ku wareejiyay madaxda sare ee Ahlusunna wal Jamaaca sababaha soo dedejiyay dagaaladan ayaa la rumaysan yahay in ay tahay dana iswaafaqsan oo kala ujeedada ah oo laga leeyahay deegaanada Galmudug kuwa oo aan la gaari karin hadii uu xasilo maamulka dawlad goboleedka Galmudug ee talada haya qorshaha ka dambeeya dagaalka oo ah kuwa ujeedada badan ayaa kuwa ugu muhiimsan waxa kamid ah dekada Hobyo oo ah mid dardar balaaran uu ku socdo howlaha lagu yagleelayo iyo waliba ololaha doorashada aqalka hoose oo dhawaan la filayo in ay ka bilowdaan deegaanada kuwa oo la rumaysan yahay in ay saameyn xooggan ku leeyihiin doorashada guud ee dalka dadka oo darasa arrimaha siyaasadda ee taxliiliya ayaa arrin ka mideeyay danaha madaxweynaha Puntland iyo Imaaraadka waxay ku sheegeen ujeedada ugu weyn in ay tahay in Siciid Dani uu yahay musharax madaxweyne dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana yahay shakhsiga ay ugu kalsoonida badan yihiin dawladda Imaaraadka ayna doonayaan wado walba uu ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya in ay u maraan sida darteedna ay isla garteen in meesha laga saaro maamulka Galmudug ugu yaraana deegaanada ay saameyn ku yeeshaan Ahlusunna si awood qaybsi ay ugu helaan xildhibaanada u codeyn lahaa Siciid Dani waxa iyana la sheegay in qaar ka mid ah madaxda Puntland ay madaxweyne Dani kaga hor yimaadeen kullig lahaanshaha dagaalka Galmudug balse waxa la tilmaamay in uu ku qanciyay arrimo ganacsi oo uu sheegay in furitaanka dekada Hobyo ay caqabad ku noqon doonto suuqa dekadaha waaweyn ee Puntland taa oo ugu dambeyn ay ku qanceen dhammaan xogahaasi waxa ay sababeen in mucaaradka muxaafidka iyo dawladda federaalka ahba ay si isku mid ah u arkaan duulaanka ku wajahan Galmudug taa oo meesha ka saartay damci Imaaraadka iyo xulufadii ay wateen